هلا سعتين maalmahan ba in labada xisbi u cidiyo kulmiye 3 bishan ay runtii soo saareen go'aamo iyo heshiis ku saabsanaa sida ay doorashadu u qabsoomi lahayd 12 December doorashooyin golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo runtii in badan muddo dhaaftay waqtigeediina runtii dhaaftay waxana si darro ah in golaha wakiiladu 14 sanadood oo runtii uu fadhiyo 14 sano ka hor baa la doortay 2005 bay ahayd ilaa alaana uu fadhiyo mar walbana uu muddo kordhis runtii uu helay taasoo dalkan iyo ummadan reer Soomaaliland ba runtii caalamkuna in badan iyo halkii noogu yimaadeen sidii doorashooyinkaas u qabsoomi lahaayeen ummadana runtii dibadhaca dambe uu mar walba uu ku keenayay magaransa niyad iyo moral xumo dad hanaankan aynu qaadanay demonstration-kana u ah muxuu ahaayay sumcad xumo u ah in mar walba golayaasheena iyo magaransa doorashooyinkeena ay mar walba dib u dhacaan ay runtii waxaan iibino oo ah amniga iyo demonstration-kan oo dalkan ka duwan yahay ba guud ahaanba Geeska Afrika oo sumcad iyo wanaag ku helayba runtii ay dibadhacaas u geysin karo in dunidu runtii ay magaransa macaamilka inala leedahay runtii ay naga joojiso marka doorashooyinkaas oo qaranka u muhiim ah ayaa runtii aanu runtii aad ogeeday inaanu go'aan aanu ka soo wasaarnay labadeed xisbi marka komishanka doorashooyinka qaranka oo runtii maanta aan halkaan joogno xafiiskooda waxaan la yeelanay meeting-kii labaad kulankayga hore wuxuu qabsoomay Arbacadii waxaan runtii ka wada hadalnay runtii maanta baan ka wada hadalnay sidii hawsha doorashooyinka iyo diiwaangelinta loo dardargelin lahaa muxuu ahaayay waqtiga yar harayna looga faa'iideysan lahaa dib u dhac dambana aan doorashooyinkaasi aan ugu iman oo anagu ka taxadirna in maanta wixii ka horeeyay hawl ahaa in la sii wada qabto ayaan runtii ka wada hadalnay runtii kulamo adag bay ahaayeen oo komishanka runtii aan soo daarsaynay oo hawshooda leeyo magaransa discussion-koodu runtii u adkaa marka ilaahay mahadii maanta si fiican ugu soo gabagabowday waxaanan ilaahay ka baryay subxaanahu wa ta'aala go'aamo fiicanna waan isla soo qaadanay oo runtii dhaxalgal ah marka oo ku saabsanaa sidii aynu diyaar garowgii iyo magaransa inaan u hub qaadano dardargelintii diiwaangelinta iyo u diyaar garowga doorashooyinka ayaa runtii aanu ugu magaransa isla qaadanay intii runtii mandate-koodana inay ummadda dalkaba uga faa'iideeyaan inta u harsan oo runtii wixii xaqooda khuseeyana ay qabtaan ayaan runtii isla waafaqnay marka waxaan runtii ku heshiinay in sidii magaransa hawsh awalba socon jirtay in iyaguna u socdo waxaan noo sheegeen wax badan oo runtii technical ahayd ay dhameystireen oo ku saabsanaa serverka iyo diiwaangelinta oo runtii khubaro ay uga yimaadeen caalamka oo runtii barbaryahanba joogay inay oo kala shaandeyntii serverka iyo magaransa dadkii berigii dhow duplication-ka badnaa oo runtii 30 ku dhawaa iminka laftigooda inay kaararka u diyaariyeen waxay noo sheegeen 160 kun oo qof oo berigii dhow kaararku aan ka habsaamay oo aan qaadan in iyaguna hadda ay diyaariyeen magaransa kaararkoodii oo guud ahaanba dadkii isdiiwaan geliyay ahaa berigii dhow ka habsaamay runtii iyaguna hawl aad muhiim ah ay runtii ay hayeen oo runtii marka ay wadeen baryahanba marka arrimahaas oo badan baan ayaan runtii iska wareysanay marka aakhirkiina waxaan ku heshiinay in loo diyaar garoobo doorashooyinkii iyo diiwaangelintii inta ka harsan marka runtii meeting-kaygu intaas ahaa waxba ku dari maayo runtii miidiyuhu waxbayda kama qarsoona warka dalka yaalla waad haysaan axsaabta qaranku runtii waxay ku mashquulsan yihiin sidii doorashooyinka u mudaysan bisha December 12 ay noogu dhici lahayd oo la isku khilaafsanayn inay waqtigooda ku dhacdo sidee waxa ka dhiman ay u dhamaan lahaayeen baa ugu muhiimsan waxa runtii laga wada hadlayay go'aamadii labadan xisbi ay soo wada saareen maalinta dhaweyd iyo sidii ay u hirgeli lahaayeen baa ugu muhiimsan komishanka qaranka waan u nimid waa komishan hay'ad walba qaranka shaqay leedahay marka shaqaday lahaayeen wixii kaga aadanaa go'aamada xisabta qaranku ay soo gaadheen say wixii anaga nagaga aadanaa ayaan runtii mataqaanaa ka wada hadalay waxaanu ka wada hadalnay waxaanu dhamaantood isla wada qaadanay ayuun buu runtii ahaa marka anagu laba xisbi ahaan maanta waxaanu ugu nimid komishanka qaranka iyo maalinta horeba go'aamada labada xisbi soo wada gaadheen khuseeyo doorashooyinka
oon lagu muransanayn inay doorashooyinku inoo dhacaan 12 bisha December cidiidana aanay jirin siday u dhaboobi lahayd in mataqaanaa dhan walba cid walba wixii ka khusaynaysay inay runtii hawsheeda qabsato ayuunbaa ugu muhiimsanayd waananu isla afkaranay komishanka waxaanu kooda hadlaynay aad iyo aad baad u mahadsantiin annagu maanta ugumaanaan talagelin inaanu shir jaraa'id oo waxyaabaha qaarkood aanu kaga hadlo waayo tabashooyin badan oo wax la kala tabanaya xisaabta qaranka si uu badan ugumaanaan talagelin runtii maanta annagu inaanu ka hadalno waxaanu idiin sheegaynaa keliya arrintaan ugu nimid komishanka ee ku saabsanayd go'aamada labada xisbi iyo doorashooyinka u mudaysan 12 December si u qabsoomi lahaayeen wixii annaga nagaga aadanaa laba xisbi ahaan inaanu runtii ka wada hadalno waananu isla afkarnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa jira xisbiga wadani waa kan dibadda ka taagan arrimahan doorashooyinka waa kan qaadacay qodobadan aad isla afkarateen taasi sidee bay u dhici kartaa inay doorasho dalka uga qabsanto xisbiga wadani waa xisbi qaran xaq buu leeyahay go'aamadu qaadanayo annaguna axsaab qaran baanu nahay xaq baanu u leenahay go'aamadaanu qaadanayno waanu ku ixtiraaminaa go'aankooda laakiin iyagaa la rabaa inaad weydiisaan xisbiga wadani wuu ogol yahay 12 December inay dhacdo doorashadu maxaa yani ka qaldan in la yiraahdo iyagaad runtii weydiinaysaan laakiin annaga dhanka iyaga maadaama go'aankaasi annagu aan rabna inaanu hirgelino 12 December inay doorashooyinkaas ku dhacaan laba xisbi ahaan waxaanu go'aansanay wixii annaga nagu xidhnaa inaanu dhamayno waana naga dhigin xagga iyaga cabdi casiis hal su'aal ku weydiiyo waa run go'aan buu qaadan karaa xisbiga wadani oo xaq buu leeyahay kuna go'aan bad qaadan kartaan komishanka laakiin idin dhax komishanka ka sokow waxa dalka maamula lagu maamulaa dastuur marka leedahay xaq buu u leeyahay go'aan buu qaadan karaa anaguna go'aan baan qaadan karnaa qodob dastuurka kamidna uu sheegayo dalka waxa doorasho gali kara 3 xisbi miyaanay taasi ahaynta koowaad ee mid aad baalmarteen idinku sharciga ee dastuurka su'aashida labaad waxa weeye komishanku markuu go'aan laba xisbi la soo saarayo go'aamada soo baxa oo xisbigiisa taxad ka maqay miyaanay noqon qaar dhinac ka raran oo aan cadaalad ku dhisnayn waad maasantahay horta saddex dastuurka hagaagayna wada akhrino saddex xisbi inay doorasho galaan waa loo baahan yahay hadduu xisbi diido uu u diido waxaanu sharci u lahayn maxaa laga yeelay iyadana xisbigaas ay tahay in la weydiiyo annagu wadani u diidi mayna doorasho inuu galaanu jecelahay waa xisbi qaran inuu xisbi qaran yahay baan ognahay laakiin wadan hadduu diiday inuu doorasho galo oon isleeyahay diidiba maayo dee taa isagaad weydiin doontaan waayo doorashadii 12 December bay noogu mudaysan tahay in la galo weeye markaa qofka yidhaa anigu geli maayo maxaad ku diidaysaa in isaga la yiraahdo isaga lagala hadlo way laakiin anagu una diidi mayno wadan inuu galaanu jecelahay saddexda xisbina wada galaan baanu jecelahay doorashadaas in 12 December dib u dhaafin baanu doonaynaa ma diidana commission isaga weydii taas isaga u taala wuxuu qofku diiday isaga u taala isaga weydii taade laakiin anagu saddex xisbi qaran inay galaan baanu doonaynaa doonayna laba xisbi inay galaan annaga jecel saddex xisbi inay laakiin hadduu xisbi diido taas isaga u taala arrintan xisbiga wadani komishanku ma idin sheegay in caqabad ku tahay ama xaq inaad isbeeshiisu keenaan wax caqabad inay ku tahay komishanku adeer xisbina xisbi uma hadlo xisbina komishan uma hadlo komishanku hawshiisu ka hadla xisbi walbana hawshiisu ka hadla anigu de wadani maanta kama wakiilihi komishanna wakiil kameehi taa komishankana weydiiyay iyagana weydiiyay waana mahadsantihiin sharcigu ha wala wada leeyahay